reer Hungerford oo iyaga maalintaas ay la ahayd maalin la mid ah maalmahoodii caadiga ahayd, laakiin Rayaan ay u ahayd maalintii dunida ugu dambeysay iyo maalintii dadka nafsadooda uu khaarijin lahaa oo ay ku jirto hooyadiis isaga dhashay iyo 15 ruux. Waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada asxaabta qaaliga ah Garaasa Channel. haddii ay tahay markii ugu horeysay ee uu soo gaaray muuqaalkan, fadlan channelka subscribe saaro, gambaleelkana furo, like inoo saar, share waa inoo dhiirigelin si aan u helno asxaab sida adiga oo kale u qiimo badan. haddaba mowduuceena aan u gudagalnay, kumuu ahaa ninkii geystay xasuuqii Hungerford. Hungerford waa magaalo ku taala dalka England. ninkan ayaa lagu magacaabaa Mitchell Robert Ryan. da ahaan wuxuu jiray 27 sano. waxa uu dhashay 18 May sanadii 1960 kuna dhashay Sefirnaka Hospital ee magaaladiisa Hungerford. waana cunuga kaliya ee ay dhaleen Alfred iyo Dorothy. waxa aabihiis lagu magacaabay Alfred Henry Ryan. waxa uu jiray 55 sano markii uu dhalanayay wiilkiisa Ryan. waxa uuna ka shaqayn jiray dowladda hoose ee magaaladaas oo uu ka ahaa kormeere dhismaha guryaha ah. waxa uu geeriyooday 2 sano ka hor inta uusan wiilkiisu xasuuqa geysan oo ku beegan 1985. waxa uuna u geeriyooday cudurka kansarka. hooyadiis waxaa lagu magacaabay Dorothy. waxayna jirtay 20 sano markii ay dhalaysay wiilkeeda Ryan. waxa ay ka shaqayn jirtay qaybta cunno karinta ee iskoolka carruurta ka hor inta aysan shaqo weytarnimo ah aysan ka helin hoteel lagu magacaabo Elcourt Park. haddaba bishii Abriil 1987 Mitchell Ryan ayaa ka shaqo bilaabay in uu ka shaqeeyo hagaajinta iyo nadiifinta wadooyinka u dhow webiga lagu magacaabo Thames oo u jira 20 mayl magaaladiisa Hungerford. Thames waa webi ka soo qulqula koonfurta England. waxa uuna dhex maraa London, waana webiga guud ahaan ugu dheer ee dhex mara England iyo kan labaad ee ugu dheer ee dhex mara boqortooyada Ingiriiska. haddaba shaqadaas wuxuu isaga tagay bishii July. waxa uuna dib ugu noqday isaga oo sheeganaya inuu shaqo la'aan yahay hay-adaha caawiya ama gunooyinka siiya dadka shaqo la'aanta ah. haddaba Ryan ayaa qaatay shahaadooyinka caddaynaya in uu isticmaali karo hubka ka hor xasuuqa inta uusan geysan. waxa uuna qaatay tiisii ugu horeysay 2 February 1978 shahaado caddaynaysa in uu yaqaan qaabka hubka loo isticmaalo. sidoo kale 11 December 1986 ayaa wuxuu qaatay shahaado kale oo caddaynaysa mulkiyadda 2 biskooladood. sharcigan uu qaatay ayaa u oggolaanayay kaliya in uu hubka u adeegsan karo meelaha loogu talagalay ee hubka loogu tababarto. haddaba Ryan ayaa sharci ahaan u haystay 8 nooc oo hub kala duwan ah, kuwaas oo uu gatay intii u dhaxaysay 17 December 1986 ilaa 8 August 1987 ka hor inta uusan xasuuqa geysan. haddaba ninkan ayaa maalintii uu weerarka qaadayay ku hubeysnaa biskoolad, bamba gacmeed, AK-47 iyo hub kalaba. ninkan waxay aniga ila tahay inuu ahaa nin hawshan horey usii qorshaystayba. haddaba waxaa la soo gaaray maalintii ay wax kasta isbedeleen magaalada Hungerford oo ku beegneed 19 August 1987. subax aysan ilaawi doonin dadka reer England, gaar ahaan reer Hungerford oo iyaga maalintaas ay la ahayd maalin la mid ah maalmahoodii caadiga ahayd, laakiin Ryan ay u ahayd maalintii dunida ugu dambeysay iyo maalintii dadka nafsadooda uu khaarijin lahaa oo ay ku jirto hooyadiis isaga dhashay iyo 15 ruux oo kale. haddaba Ryan ayaa u galay meel kayn ah oo laamiga u dhow gabar lagu magacaabo Susan iyo 2 carruur oo ay dhashay oo markaas iskoolka ay ka soo qaaday abbaare saacadu markay ahayd 12:15 duhurnimo. isaga oo afduubtay gaarigana kala degay. waxa uu u kaxaystay meel kayn ah oo u dhoweyd halkaas oo uu 13 jeer ku toogtay. alla ninku naxariis darana, laakiin carruurtii waa ka badbaadeen oo qof dumar ah oo kaynta lugeynaysay ayaa meel cidla ah ka heshay kadib markii uu falkaas geystay.
waxa uu soo kaxaystay gaarigii gabadha, waxa uuna yimid kaalin shidaal. Halkaasna waxa uu ku toogtay kaashiyeerkii meesha. Qof kalena wuu isku dayay, laakiin uma suurtagelin oo qorigiisii baa ka jaangaroobay. Dadkii aagga joogay ayaa booliiska wacay, una sheegay in ay arkeen nin hubeysan oo kaalin shidaal taagan. Booliiskii ayaa 3 gaari kaalintii shidaal u soo diray, balse sida loo soo ogaaday ninkaas waxa uu yahay, balse isagu meesha waa isaga tagay inta aysan booliisku meesha soo gaarin, oo waxa uu ku soo laabtay xaafadii uu ka deganaa magaalada. Abbaare saacadu markii ay maraysay 12:45 oo duhurnimo. Dadka dariskiisa ahaa oo arkayay marka uu gurigiisa sii geliyay ayaa tilmaamay in uu aad u caraysnaa oo wejigiisa caro saa'id ah ay ka muuqatay. Markii uu guriga gudaha u galay ayaa waxaa la maqlayay xabado ka dhacaya guriga gudihiisa. Waxa uuna toogtay hooyadiis isaga dhashay iyo 2 ay oo ay lahaayeen reer ay daris ahaayeen. Ninkan bini'aadam iska daaya xitaa ay cafi maayo. Kadib gurigii ayuu ka soo baxay isagoo oo sita cunno iyo jaakad xabad ah, sidii nin dagaal militari u socda oo hubkiisa saanadoo dhan u dhammaystiran tahay. Ninkan gaarigii buu damcay inuu ka haysto, balse nasiib darro gaarigii baa u kici waayay. Kadib gurigii ayuu dib ugu laabtay. Gaas uu kaalintii shidaal ka soo qaatay oo watay gurigii ku bilbilay oo uu dab qabadsiiyay. Halkaas oo uu gurigii oo hooyadiis oo meyd ah ay dhex taalay iyo cafeteria meesha ka dhoweed iyo 2 guri oo kale ay meesha ku gubteen. Kadib waxa uu u jihaystay meel sportska lagu ciyaaro. Intii uu ku sii socday waxa uu wadada ku toogtay 2 gabdhood oo dariskiisa ka mid ahaa oo lagu magacaabay Roland iyo Sheila Mason. Sidoo kale Lisa oo 14 jir ahayd oo maqlaysay dhawaaqa xabadaha ayaa meesha soo aaday. Iyadana 4 jeer buu lugaha ka toogtay, laakiin way badbaaday. Markii dambe waxa uu soo gaaray waddo common ah oo dadka magaaladu ay aad u isticmaalaan. Halkaasina waxa uu ku toogtay nin 51 jir ahaa oo ay la lugeynayay isaga iyo qoyskiisa. Laakiin nasiib wanaag qoyskiisa ayaa meesha isaga baxsaday. Ninkan Ryan lagu magacaabo markii uu soo diray wixii uu dad soo dili karay qaarna soo dhaawacay ayaa waxaa ka soo horbaxay 2 booliis ah oo aan hubeysnayn. Iyagiina waa uu toogtay. Kadib ayuu iskool uu yaraantiisii dhigan jiray soo galay, halkaas oo ay booliiskii ku hareereeyeen. Markii uu ogaaday in uusan meesha ka bixi karin ayuu dhafoorka iska toogtay. Abbaare saacadu markii ay ahayd 2 saac ama 8 habeenimo. Booliiskii markii ay xabadda maqleen ayay goobtii gudaha u galeen, halkaasna ay ugu tageen Ryan oo isdilay. Kadib dhimashadii Ryan, dhakhaatiirta cilmi nafsiga ama psychology ku shaqo leh ayaa baaray maskaxdiisa iyo bal sababtii ka dambeysay in uu ficilkan geysto. Ryan waxa ayna ku sheegeen in uu si saa'id ah ula ildarnaa xanuunka loo yaqaano schizophrenia. Haddaba xanuunkan dadka qaba ayaa lagu tilmaamaa in ay leeyihiin dabeecado ay ka mid yihiin dhaqamo kale oo ay la soo baxaan iyo cod mala'awaal ah oo maskaxdooda ka dhex yeera. Sidoo kale qofka waxaa lagu arkaa isaga oo aan kala saari karin xaqiiqada iyo mala'awaalka. Asxaabta idinku sheekadan maxaa idinkaga baxayna daawade. Haddii aad doonaysay sheekadan oo faahfaahsan, waxa aan kuu soo dhigay linkiga hoose ee halkaas ka akhriso iyada oo ku qoran luqadda Ingiriiska. Daawade, haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan fiidiyowga like inoo saar, sheertu waa inoo dhiirigelin, channelkan subscribe saaro, gambaleelkana u furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu soo gelino. Mahadsanidin.